السلام عليكم أصحاب الشرفت له ما أنت واحد ذي هيا بيشكين أصب أنت أصب واللي يرادو حلدون باليرادة رنتي أدي بمرتي أنت دمرتي دلوري جاي وحيابي هذا كورن كان ليني وحاجة باليرادها وحاجة مشدة وحاجة مرتي بيكها الله يسار 6 وصا الورس البيبي إن أنا ويل كانوا وحوي أبوان كانوا برتي دورت اللي جاي markan antadaas aynu falaqaynana in yar biyaan ka falanqayn doonaa insha Allah hadii ilaahaymo antadana way sii socon doontaa aad iyo aad waa ku dirsaday marka waa xulkiya waladii xidiga abwaanada abwaan cabdilbaad waa xaqi bishaar wadani waa muusiqi cabdiraabi waa duubistii laba filaan oo soo saaridii miraad barrashin waa rin magacsho idin leh xaadir weeya هذه الثانوية حقي دونا وحمدي سجنا. عرفك بيدين قري حفظي هدنا حكمة ويا أنا وين حاكم سيايو على كجود جيرو على كجود جيرو حاضر ولا صلاة. حرفك بينين قري وهدنا حفظي حكمة ويا إلى حاكم سيايو يا معناها waxa weeye xalka jiro oo wax kasto jira ayuu caadi u arkaa waday qof wax loo sheegay waa abwaan qof wax loo sheegay maaha intay saan ka tahay maaha wax kasta uu arkaa xal kasto jira iyo nidaam kasto socda marka ma insha Allah annaguna waxaan leenahay abwaanka xariiqayo salaanta saliyo xubbiga gudub fahanti marka حرفك بينين قري حفظي هدنا حكمة ويا أنا وحاكم سيايو على كجود جيرو على كجود جيرو حاضر ولا صلاة. تعطونا اللي جيست ورطة تعطونا كده جيست حكومة دانون حق ونحنا أغسانين ونحفال تمين ياللي يرى ذا حمر ياللي يرى ذا حمر يحقود كل مي. dhalinyarada xamar kaliya maaha abwaan waa dhalinyarada Soomaaliyeed laakiin waa isla meeshii waxa weeye waa digtay barteed waa digtay jibgoy hore u soo saaxib sida saaxib حكومة دانون حق ورحنا غسانين والحفال تمين ياللي يرى ذا حمر ياللي يرى ذا حمر يحفظ كل مي. marka hore anoon xukuumadda aan xaqin anaha anoon de wax feeyfeyn oo aan meel badan gacanta gelin dhalinyarada xamar ayuu xaqooda ku maqayeen anaha waxa weeye hadalku waa hadal nin weyn waa taatay kaba gaadno inaynu الجمال انتي حيدا وقالن ويردا حيدين سيدي حدود الكلي قال لي يا راضو سو قال لي يا راضو سوكم حقان عدل هذا الجمال انتي حيدا وقالن ويردا حيدين سيدي حدود الكلي قال لي يا راضو سو قال لي يا راضو سوكم حقان عدل هذا الجبهة النادي حكومة داد سارها حدثي حولان وديري أحركة فرتي على ما هيني مارون على ما هيني مارون مدحق صرت بالشهادة وارجز حال ما هيني بالشهادة ما مرون حال سلطان معناها حالك واسكوري السياهي دليرني ويكرت الله جنبه ربع حسابته من وحفهم ليش أنت باشا ربطين وقعد يردد حربتين وحيبي يانكيني هوسي وحيبي أسكقات معها نظامكم معها
marka waxa weeye gaar ahaana kii maamulkii koonfur galbeed iyo madaxweynayaashii aan maalinta fariinta u direynay dhaantadan horta si fiican u dhagaysta fahma ku celashada 2 jeer iyo 3 jeer waxaan ka hadlaynay iyo waxay ka hadlaysay iyo nidaamka aanu ka hadlayno dhalinyarada meel kasta ay joogaan Soomaaliyeed hadday xamar joogaan hadday baydhaba joogaan hadday meel kale ba joogaan dayic iyo daryeel la'aantu waa wax jira waan aragnay annaguna ma kaabsanayne waanu ka hadlaynaa intii tamartanada ah ilaa iyo intaan xaqanaga iyo xuquuqdanada iyo dhalinyarada xaqeeda iyo xuquuqdeeda lagu helayo qaar baa jiran waa runtiis abwaankan soo sheeday qaar baa xanuunsan qaar baa daryeel la'aan qaar baa waxa weeye labada dhanba la isku celiyay oo madaxde marka madaxweyne la tagare iyo maamulka koonfurta si fiican dhageysta dhaantadaas si fiican u dhageysta dhaantadaas haddeer hadhow macnaha waxa weeye war dhaantada dhageysta dhaantadaana way soconaysaa intay soconaysaa annagu xataa inaanu ama ka qayb qaadanaanu rabnaa insha allah haddii ilaahay idmo marka waxa weeye war arrimaha jira ka hadla waxaanu ka hadlayno waxa weeye fahme oo na fahme marun madaxa qasarta bulshada kastaba ku jiranuun xasuuq waan sidii xoola lumaynina xalaynaadana xujo weeye tolow xilka yaalo sidaa markasta caqabad bay ku jiraan waa waxa weeye haddee warnimayo waxaa halkaan u adagtaan anigu beeshkin macnaha inaan maanta kaba gaaro inaan aad u sii falanqeeyo waqti xoogaa leh u baahan tahay ma iskaba jooji walaal marka waxa weeye dhaantada waa ii tusayey waa dhagaysan doontaan insha allah inaad soo dhagaysateenna waa laga yaabaa marka muhiimaddu waxay ahayd inaanu kusii maaragtay idinku sii baraarujinno uu ahaa qorshuhu marka waxa weeye waxaa laga hadlayay iyo waxaan 4 saac ka hadlayno waa danta dhalinyarada waa danta bulshada waa danta abwaanadu markiiba macnaha ma sha Allah horta abwaan markiiba waa ku fahmaya barta xaalku si ka yahay macnaha wuu ku fahmaya aad iyo aad dantadan aad iyo aad baan macnaha ugu diirsado horeyna waa idinku sheegay waxaan ku yiri haddii anigu aan hadlo boqolaal dhalinyara baa soo hadlaysa oo nidaamkan aan arkay ila arki doonta abwaankana kiibgoy baan ku leeyahay barteedii baad dhigtay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waan ku hambalyeynaa waxa weeye dhalinyaradii in xaqoodii aan heli doonaan u malaynaynaa waad fahanteen sooma marka sida kalena waa idin salaamay lamba arleegtiya sheerkiiyo community iyo subscribe-kana naga ilaawinayna mayo waad iska daawataan waad iska tagtaan waxa weeye sidii dhalinyaro kaloo Soomaaliyeed aad meel fiican u gaarsiiseen waxaan rajaynayaa inaad meel fiican gaarsiin doontaan marka saaxiibayaal leegta community wax kaste war naga kala keenayo meesha iskaga tagno kor soconayna hore soconayna hadday xilli kastaba ku jiranuun xasuuq waan sidii xoola lumaynina xalaynaadana xujo weeye tolow xilka yaalo sidaa hadday xilli kastaba ku jiranuun xasuuq waan sidii xoola lumaynina xalaynaadana xujo weeye tolow xilka yaalo sidaa kuwa raba xanaan iyo xarun daryeel ee xanuunsane ayga xeraa la gala bal xasuusto miyay inaan xaqnagu lahayn kuwa raba xanaan iyo xarun daryeel ee
xanaane ayga xeraa la gala bal xasuusto miyaynan xaqnagu lahayn xabagtiyo inay xashishkada cabaan way xadaan dadkoy xaafadaha galaan herka nolol xumada sodankuma xukumin xabagtiyo inay xashishkada cabaan way xadaan dadkoy xaafadaha galaan herka nolol xumiyo sodankuma xukumin xildhibaanadiyo xukuumadda saraba cod si xoog laan u diri oo xadhka furte xalmahayne marun maad xaq sortaan bulshada xildhibaanadiyo xukuumadda saraba cod si xoog laan u diri oo xadhka furte xalmahayne marun maad xaq sortaan bulshada